dugsiyada nuuraddiin schools. بسم الله الرحمن الرحيم ومعلومات وتبنتين توسكاهيد وعشر كان حسابتها وفصل كل لحد أرضي 10 كان يكون كوري وحنا كسوق هذاني بدك كورتو وحنا واشحن وسميسن قاب نوعا وكلا بدك جوابه وحنا صدقنا مركا شحن كدوان شحن كان وأنا صار سمعنا مركا محيرة أيه إنه كورت الله يقارن أرضي بدك كورت مركا قاب نوعا وكلوها محيرة أيه بدك كورت نوع شحن نوع سكر صدقنا 10 كان كوري وحنا مركاسي والله بلينو بربرها لينka waxa loo yaqaanaa A kana waxa loo yaqaanaa B kana waxa loo yaqaanaa joog weyn soo dhiganay waxa kale soo qaadanay in badka koorta in arday lagu helo maxay raadayay 1/2 oo lagu dhuftay A oo loo geeyay B oo lagu dhuftay joog okay maanta marka casharkan qaadanaa waxa weeyaan waa badkii goobo marka goobo waa shaxan wareegsan marka badka goobo marka la doonayo inaynu soo saarno waxaan si yar kooban sameyn doonaa tusaale yar kooban ayaynu sameyn doonaa hadii la xidhaado marka tusaaleheena koowaad waxaan doonaynaa badka goobo soo saarno way badka goobo okay haddaba intaan aan bilaabin casharkeenta inaan bilaabin aan isla aragno waxa uu yahay badka goobo waa waxa aan ku heli karnaa iyada oo la tirinayo tirada laba jibaaranayaasha dabooli kara goobada goobadan waxay ku taallaa darkaysan ardayo sawirka xagan ku yaala waxa uu noo muujinayaa goobo laakiin waxa ka dambeeya waa shaxan laba jibaaranayaal yaryar midna wuxuu ku yiri badka goobo waxa aan ku heli karnaa iyada oo la tirinayo tirada laba jibaaranayaasha dabooli kara goobada qaabka goobada awgeed waxa aad heli kartaa oo kaliya tiro qiyaasaysan tiro dhameystiran oo la heli karo oo laba jibaarayana marka muxuu sameynayaa waxaanu sameynaa marka ardayo ولا بتشبارنياشن إنه شيء يايو لأنه حقبض من نادره مركا حقبض كان نسكت عفنه ما حنا سامين كنا أوكي شحن كان وحو وجه هاي ليدي وكان هن كوسورنا الرجال مركا شحن كبرتن كوسورن أيا وحو نقول يا محي ليدي ووجه شحن كني وحو وجه هاي ليدي شحن كني وحو وجه هاي ليدي dhererkiisu waa 1/2 meeriska goobada balciisuna waxa uu la mid yahay gacanka goobada badka goobada waxa uu qiyaas ahaan u dhow yahay badka leydiga badka leydiga 1/2 oo lagu dhuftay M oo lagu dhuftay G ama 1/2 oo lagu dhuftay meeriska goobada oo lagu dhuftay gacan oo arday hore waxaynu u soo dhiganay meeriska goobo marka aad haysato gacan in lagu helo 2 by gacan marka macnaha waxa lagu leeyahay waa 1/2 lagu dhuftay meeriska goobada oo ah 2 by gacan oo lagu dhuftay gacan ayaa lagu helaa ama waxaan oran karnaa waa by gacan square waxa loo jeedaa markii hore waxaad haysatay 1/2 oo lagu dhuftay meeriska oo 2 by gacana oo lagu dhuftay gacan 2ga iyo 2gaasi waa la isku kansalay arday sidaad halka waxa ka soo baxaysa by gacan oo lagu dhuftay gacan labadan gacan ee isku midka isku dhacayo waa by gacan square sidaad daraadeed baan doonaynaa marka inaynu tusaale adaba soo qaadano okay waxa lagu yiri raadi bedka goobo raadi bedka goobo leh gacan 7 sentimitir ah
raadi bedka goobo leh gacan 7 sentimitir ah sidaa daraaddeed ardayda markaa waxaynu sameynaynaa in aynu odhanaynaa bedka waxaa lagu helaa bay gacan laba jibaaran haddaba bay baa meesha la socotee horeynu usoo dhiganay sida bay u timi iyo bay waxay ahaydba waxaynu ku dhiganay casharkeennii hore ee meeriska iyo markaynu soo saaraynay sidaa daraaddeed waxaan odhanaynaa bay waxaynu u qaadanaynaa mar walba 22 oo loo qaybiyey 7 oo lagu dhuftay gacanka had iyo jeer waxaa layna siiyo oo imisa 7 sentimitir ah sidaa daraaddeed waa 7 sentimitir oo laba jibaaran macnaha 2 jeer la isku dhuftay waxaynu la mid tahay markaa ardayow waa 22 oo loo qaybiyey 7 oo lagu dhuftay 7 lagu dhuftay 7 49 sentimitir lagu dhuftay sentimitir laba jibaaran sidaa daraaddeed xaggaa waxaynu u qaybaynaa by 7 xaggaana waxaynu u qaybaynaa by 7 xaggan waxaa soo baxaysa 22 lagu dhuftay 7 sentimitir laba jibaaran haye inta markaynu isku dhufana maxay noo soo baxayaa 154 sentimitir laba jibaaran intaasuu bedku noqonayaa markaa maxaynu idhi bedka goobo oo meeriska waxay raadi bedka goobo leh gacan 7 sentimitir ah dadna waxaynu idhi bedka waxaa lagu helaa bay gacan laba jibaaran baydi waxaynu u qaadanay 22 loo qaybiyey 7 oo lagu dhuftay gacanka oo ah 7 sentimitir sidaa daraaddeed waa 22 oo loo qaybiyey 7 toddobadii gacanka layna siiyeyna 2 jeer baa la isku dhufayaa iskuweerku ama laba jibaarku wuxuu sheegaa in tirada meesha taala 2 jeer la isku dhufto hore waxaynu idigu dhiganay in ay kala duwan tahay maxaa dhahdaayay tusaale ahaan oo kale tiri laba jibaaran iyo tiri lagu dhuftay tiri inay kala duwan tahay baynu hore usoo dhiganay sidaa daraaddeed 7 2 jeer baa la isku dhufanayaayo waa 49 sentimitirkuna wuu laba jibaarmayaayo waa sentimitir laba jibaaran sidaa daraaddeed 7 hooseeyaha dhan walba 7 loo qaybinaya xaggana 7 loo qaybinaya xaggana 7 xaggan waa 22 xaggan sidoo kalena waa 7 sentimitir square okay inta marka 22 marka 7 lagu dhuftana waa 154 sentimitir laba jibaaran waaye tusaale labaad baan arday haddana doonaynaa inaynu ka shaqayno tusaalaha labaad isagu muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa x tusaale number 2 tusaalaha labaad isagu muxuu odhanayaa tusaalaha labaad wuxuu odhanayaa hadalkii baa lanaga daynayaayo bedkii baa lana siinayaa bedkii baa lana weydiinayaa gacankiina waxaa lana siinayaa 14 sentimitir 14 sentimitir okay haddaba bedka maxaa arday lagu helaa sidaynu horeba wada naqaano bedka waxaa lagu helaa waa bedka goobee bay gacan laba jibaaran baa lagu helaa waayahay bayda maxaad u qaadanaysaa 22 oo loo qaybiyey 7 oo lagu dhuftay 14 sentimitir laba jibaaran macnaha 2 jeer la isku dhuftay marka waa imisa waa 22 oo loo qaybiyey 7 oo lagu dhuftay halkan waa 14 soo maaha waxaanu ardayo sameyn karnaa 2 qaab baynu ka dhigan karnaa waa 14 lagu dhuftay 14 sentimitir si ay kuugu fudaato isku qaybintu xagga markaa maxaad u qaybin kartaa bay 7 baa u qaybin kartaa halkaana bay 7 baa u qaybin kartaa xagga waxa soo hadhaya 22 kaliya to xagga sare ah oo lagu dhuftay 14 marka 7 loo qaybinayo waa 2 sentimitir oo lagu dhuftay 14 sentimitir la soco ardayo labadan 14aad ma aha wax kale waa 14 kii labada jeer la isku dhufanayaan ku kala qaaday way labada marka isku dhufato 22 lagu dhuftay imisa 2 waa 44 sentimitir oo lagu dhuftay 14 sentimitir way 44 baynu ku dhufanaa 14 oo waa 16 oo hal baa sidataa 16 kaasaytay 17 halkaas waa imisa 4 hal ku dhufo waa 4 haddana hal kale ku dhufo waa 4 dadna isku geey marka arday halkan waa imisa waa 6 halkana waa 11 kooda dhigo halkana waa 5 kaasaytay waa 6 intaas marka waxay kula mid noqonaysaa 616 sentimitir laba jibaaran mar labaad hadday soo eeg bedkii baa layna weydiiyeyo waxaa laynagu yidhi bedkii goobaa layna weydiiyey gacankiisna waxaana siiyaa 14 sentimitir
sidaa daraaddeed baa lagu yidhi bedka goobo maxaa lagu helaayo bay gacan laba jibaaran baa lagu helaa bay gacan laba jibaaran baa lagu helaa bayda maxaynu u qaadanaynaa 22 loo qaybiyo 7 oo lagu dhuftay 14 sentimitir laba jeer la isku dhuftay marka waa 22 oo loo qaybiyo 7 oo lagu dhuftay 14 lagu dhuftay 14 marka waa 22 xagga baysaman baa loo qaybay xaggana baysaman waa 22 lagu dhuftay 2 sentimitir oo lagu soo dhuftay 14 labada marka la isku dhufto waa 44 waa 22 iyo labada marka la isku dhufto waa 44 sentimitir xaggana maxay noo yaala 14 sentimitir dhammaantood marka la isku dhufto maxaa soo baxaya 616 sentimitir way ardayga marka haddaba maxaynu doonaynaa waxaan doonayaa marka in adigu haddaba aad layliskan ka shaqayso waxaan doonayaa inaan laylis muujino laylis way haddaba maxaan ku oranayaa number 1 bedka waa lagu weydiinayaa gacankana maxaa lagu siinayaa baan ku idhi 21 sentimitir su-aasha labaad raadi bedka goobo raadi bedka goobo leh gacan madan soo socda sideed iyo 20 sentimitir B 49 sentimitir 49 sentimitir waxaan raadinaynaa marka ardayow bedka goobo ayaynu raadinaynaa gacankeedu waa lagu siinayaa 21 sentimitir ta kalena waxaa lagu siinayaa laba goobo laga rabaayo ta koobaad waxa weeyaan inuu gacankeedu yahay 28 sentimitir ta labaadna waxa weeyaan 49 sentimitir weeye markaas ka shaqeyn doontaa insha Allah bidmilaahi moola xiisada xigtay insha Allah aynu ku kulmi doonaa casharka xiga wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullah